Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Waa idin salaam saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan. Saddexdii sano ee u dambeysay waxaa dunida inteeda badan saameeyay caabuqa COVID-19. Dhaqaalaha adduunkana hoos u dhac weyn ayaa laga dareemay, gaar ahaan shirkadaha waaweyn. Hase yeeshee waxaa jira shirkado ka badbaaday ama ugu yaraan ka samata baxay aafooyinkaas. Shirkadaha ka jira dunida waxa ay ku dadaalayaan sida ay sanad walba dhaqaale fiican u samayn lahaayeen, kaalmaha horena uga soo muuqan lahaayeen liiska shirkadaha ugu hantida badan adduunka. Haddaba maanta waxaynu ka hadli doonaa 5 shirkadood ee ugu qanisan adduunka. Qiimayntan waxay ku saleysan tahay xagga dakhliga iyo kobaca shirkadaha ay sameeyeen sanadkan. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Liiskan waxaan ka bilaabi doonaa shirkadda shanaad ee ugu hooseysa 5 shirkad ee ugu hodansan xagga dakhliga, annagoo ugu dambeynsiin doona shirkadda koowaad ee hogaaminaysa shirkadaha dunida ee dhanka dakhliga. Shirkadda shanaad, Amazon. Shirkadda Amazon oo uu leeyahay maalqabeenka Jeff Bezos waa mareeg si online wax looga kala iibsado, lagana leeyahay dalka Mareykanka. 7 January 2019, Amazon waxa ay noqotay shirkadda ugu qaalisan adduunka markii ugu horeysay oo ay kaga guuleysatay shirkadda Microsoft oo ay ku tartamayeen jagadaas. Maanta Amazon liiska shirkadaha ugu hodansan adduunka waxay kaga jirtaa booska shanaad. Amazon sida wax yar ka hor soo sheegnay waa shirkad tafaariiqeed Mareykan ah oo wax ku iibisa kuna soo gudbisa alaabo kala duwan qaab online ah. Isticmaalayaasha internetka, ganacsatada iyo wax soo saarayaashu waxay iibin karaan alaab kasta iyaga oo isticmaalaya bogga ama website-ka Amazon si online ah. Shirkadda Amazon waxaa la aasaasay sanadka markuu ahaa 1994, waxaana aasaasay sidaan wax yar ka hor soo sheegnay Jeff Bezos. Xarunteeda ugu weyn waxay ku taalaa dalka Mareykanka, gaar ahaan Seattle, Washington. Waxaa la sheegaa in shaqaalaha shirkaddan ay kor u dhaafayaan 1 milyan oo shaqaale. Asadka ama hantida shirkaddana waxay gaaraysaa $360 bilyan waqtigan la joogo, taasi oo ka dhigaysa mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka. Dakhliga sanadlaha ah ee shirkadda Amazon waxaa lagu qiyaasay $400 bilyan. Shirkadda afraad, Saudi Aramco. Saudi Aramco waa shirkad soo saarta saliidda iyo gaaska dabiiciga ah, waxaana saamiga ugu badan iska leh boqortooyada Sacuudiga. Saudi Aramco waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha adduunka ugu qaalisan kadib markii ay si rasmi ah u daabacday markii ugu horeysay xisaab xirkeeda sanadlaha ah sanadkii 2019. Qiimaha saxda ah ee shirkaddan ma ahan mid la shaaciyay, 2 sababood ayaana loo aaneeyay. Waa tan koowaad, saamiga ugu badan ee shirkaddan waxaa iska leh boqortooyada Sacuudiga. Tan labaadna waa in qiimaha shidaalka uu yahay mid degdeg isku bedela, iyadoo ay dhici karto in qiimaha shirkadda uu isku bedelo bilyamaad dollar maalin gudaheeda. Laakiin majalada caanka ah ee Forbes ayaa waxa ay ku qiyaastay in shirkaddu ay qiimaheedu gaarayso ku dhawaad $1.1 trilyan. Si kastaba ha ahaatee, musiibadii caalamiga ahayd ee COVID-19 ayaa saameyn xooggan ku yeeshay dhaqaalaha shirkaddan, iyadoo shirkaddu ay ku dhawaaqday hoos u dhac ku yimid dakhliga sanadkii 2020 marka loo eego sanadkii hore. Weli iyadoo loo tixgelinayo mid ka mid ah hogaamiyayaasha adduunka ee wax soo saarka iyo kaydka shidaalka, dhaqaaliyahanada adduunka waxay aaminsan yihiin in shirkaddu ay dib ugu soo laabanayso maqaamkeedii, noqonaysana shirkadda ugu qiimaha badan adduunka. Shirkadda saddexaad, Google. Google waa shirkad tiknoolajiyadeed caalami ah oo ku takhasustay adeegyada iyo aaladaha la xiriira internetka. Shirkaddu waxa ay dhowaan bedeshay magaceeda Google waxayna u bedeshay magaca Alphabet, maxaa yeelay shirkadda baaxadeeda ayaa sare uga kacday sidii ay ahayd. Google-na waxa ay ka mid noqotay shirkadaha hoos yimaada magaca weyn ee Alphabet. Shirkaddu waxay inta badan diiradda saartaa raadinta ku saleysan mareegaha search engine iyo soo bandhigista agabka xayeysiiska. Sergey Brin iyo Larry Page oo si wadajir u abuuray shirkaddan 1998 waa madaxda ugu sarreysa ee hay'adda. In ka badan 30 shirkado hoosaadyo ayaa hoos yimaada shirkaddan Alphabet, waxaana ka mid ah Google, AdWords, Android, YouTube iyo in kale badan. Shirkaddan Alphabet qiimaheedu waxaa lagu qiyaasay $1.2 trilyan. Xarunteeduna waa California, USA. Shirkadda labaad, Microsoft. Shirkadda labaad ee ugu qiimaha badan adduunka waa Microsoft. Microsoft waxaa la aasaasay sanadkii 1975, waxaana aasaasay Bill Gates oo ka mid ah ragga ugu qanisan adduunka. Waqtigaas Microsoft waxay ahayd shirkaddii ugu horeysay ee soo saarta softweerada ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada. Maanta shirkadda Microsoft waa mid ka mid ah shirkadaha hormuudka u ah suuqa softweerada ay ku shaqeeyaan kombiyuutarada. Waxay sidoo kale soo saartaa nidaamyada Windows-ka ee jiilka cusub oo ay afka qalaad ku yiraahdaan New Generation Windows Operating System, iyo isticmaalka dukumentiyada loo yaqaan Microsoft Office sida Word, Excel, PowerPoint iyo wax la mid ah, iyo barnaamijyo kale oo badan oo software ah.
shirkadda Microsoft qiimaheedu waxaa lagu qiyaasay 1.6 trilyan oo dollar. xarunteeduna waa Redmond, Washington, USA. waa hagaag waxaan soo gaarnay shirkadda ku jirta booska koowaad, laakiin daawadayaad is leedahay adiga shirkaddaas way noqon kartaa ma Samsung, Apple mise Alibaba. waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka joojiso, commentigana aad ku qorto saddexdaas shirkad ee aan soo sheegnay midda ay tahay shirkadda koowaad. shirkaddeena koowaad, Apple. daawad haddii waqtigu uu kuu saamaxay in commentiga aad ku qorto saddexdaas shirkadood weliba aad ku qortay Apple, ama ay kula tahay in shirkadda Apple ay tahay shirkadda koowaad, waa saxan tahay. bishii Maarso ee sanadkan 2021 qiimaha shirkaddan Apple ayaa kor u dhaafay 2 trilyan oo dollar, iyadoo maanta ku fadhisa booska koowaad ee shirkadaha ugu qiimaha badan adduunka. shirkaddan Apple ayaa 10kii sano ee ugu dambeysay ka mid ahayd shirkadaha ugu qiimaha sarreeya adduunka. xilligan aan joognana waa shirkadda ugu hodansan dunida. shirkaddan waxaa la aasaasay 1 April 1976, waxaana aasaasay Steve Wozniak, Ronald Wayne iyo Steve Jobs. saddexdan nin ayaa markoodii hore waxay xoogga saari jireen soo saarista kombiyuutarada guryaha iyo sidoo kale soo saarista noocyada kala duwan ee kombiyuutarada gaarka ah ee loo yaqaano personal computers ama PC. laakiin guusheeda ugu weyneed waxay timid sanadihii u dambeeyay markii ay shirkadda Apple ay dunida ku soo kordhisay wax soo saarka mobilada sida telefoonada casriga ah ee iPhone iyo tabletyada iPad-ka. maanta sumadda ama loogada shirkadda waxa ay noqotay mid inta badan dadka ku nool dunida ay aad u yaqaanaan. waxa ayna noqotay sumadda ugu qaalisan sumadaha shirkadaha adduunka, iyadoo qiimaheedu lagu qiyaasay 2.5 bilyan oo dollar. daawadayaal, muuqaalkeena maanta ee aan uga hadlaynay 5 shirkad ee ugu qaalisan adduunka halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. haddii aad ka heshay muuqaalka, waxaan kaa codsanaynaa inaad like saarto, siina share garayso. waad mahadsan tahay. wayna muuqaalka xiga insha Allah. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.